taariikhda uu ku fadhiyo gudoomiye Jawaari waxay qayb ka tahay astaanta qaranka Soomaaliya ciddii karaameyn weysa madaxdooda naftooda u soo hurtana horumarkooda uu daciifaayo markuu gudoomiyuhu ii sheegay inaan imaado waxaan u sheegay meel walbood igu yeerto waa imaanaya gudoomiye maadaama Jawaari gudoomiyaheena Allah barakeeyo uu yahay astaanta qaranka horta waxaan rabaa inaan ka codsado dadka howlkan ku jira inaan u qaadno heesta astaanta qaranka alala gudoomiye Jawaari waxa uu ka mid yahay dadka Soomaaliyeed oo ka turjuma shaqada xirfadeeda iyo qaabka loogu shaqeeyo kartiyuuna gudoomiyaha waxaan ka faa'iidaystaa khibradiisa mar walba oo shaqo qabanayana waan u tagaa anigoo doonta taladiisa waa nin degan wadaninimadiisa aan su'aal la gelin karin dadka isku haya dulqaadkiisu uu yahay geed weyn oo la hadsan karo maadaama marka uu Jawaari yahay qof ximbaarsan taariikhda Soomaaliyeed inteena ka yar horta waxaan ugu waajibaa inaan ka baro isagana waxaan ka codsanayaa inuu na baro waxyaabaha naga qaldan iyo waxaan uga baahannahay taariikhda laakiin waxaan rabaa halkan inaan laba eray ka yiraahdo haddii aad ku faraxsan tihiin in maanta xafladan lagu maamuuso gudoomiye Jawaari sida aan anigu ugu faraxsanahay haddii aad rabtaan inaad u hiilisaan gudoomiye Jawaari haddii aad rabtaan inaad maamuustaan gudoomiye Jawaari waxaan idinkula talinayaa inaan yeelno sida soo socda waa inaan ku caawinaa gudoomiye Jawaari si uu u arko waxa qalbigiisa ku jira qalbigiisa waxa ku jira gudoomiye Jawaari haddaan akrinana waxa uu rajo ka qabaa inuu ka tago Soomaaliya ay xaq u leeyihiin dadka Soomaaliyeed